magaalada Lafaciise oo horay u ahayd tuulo ayaa waqtigan heshay darajadii iyo qiyamkii ay mudnayd oo noqotay maamul magaalo qoday beertina u baxday midhii ka dhargay isku raaxaysanaya muddo wanaagsan seexday gamay baan nahay maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan mahadnaqay haddaba maanta Lafaciise dakhliga ka soo bixi jiray waxaa dakhliga ugu badan degmada Awbar kawsar way heshay 80 sanana weeyaan cumrigeedu magaalada 80 sano weeyaan magaalada cumrigeedu haddayna 80 baahay Lafaciise waxaa ku jirtaa meesha ugu hanti badan dad badan wax soo saarna leh waxaa ka dhisan halkan warshadii daqiiqda ee qamadiga rafaysa waa magaalo xarunta deegaanka ee caasimadda Jigjiga dhanka waqooyi ka xigta 36 kiiloomitir waa xarunta dalagga iyo wax soo saarka kala duwan hodan ku ah oo leh bustaano waaweyn iyo dhul aad u baaxad weyn oo ku habboon beeraha iyo cimilo aad u wanaagsan oo soo jiidasho leh maamulka magaalada Lafaciise oo ka mid ah magaalooyinka safka hore kaga jira goobaha uu alla ku manaystay nimcooyinka iyo khayraadka dihin ee dhanka dhul beereed kuna habboon wax soo saarka kala duwan ee ku yaala deegaanka waana magaalo si baaxad leh u kobcaysay waqtiyadii la soo dhaafay isla markaana aan helin darajadii ay mudnayd marka la fiiriyo baaxadda ay magaaladu lahayd bulshada ku dhaqan iyo wax soo saarkeeda sida ay ku maqraati kacayaan waxgaradka iyo qaar ka mid ah shacabka magaaladan oo ka hadlaya taariikhda ay soo martay magaalada Lafaciise saan ka sheekeeyo ama aan ka warramo taariikhda Lafaciise waxa soo degay halkani waxa odayga xaddi cilmi looran jiray xaddi iga looran jiray Allah u naxariistay iyo burka dhistay halka meel yar ee halkan beertaana waan sheegay halka magaalada Faygeeda ah oo risaayid iyo burka gooyay bur yar bur halka ka dhistay oo wadaharna jiray baa meesha mari jirtay wadaharda soo sameystay bur yar oo shaab ku jiray dibada ku jiray shaah halkaas anagu xoolo eegayna oo walga aan sheegay 20 jir baan ahaa iyo halka aan shaah yar ka soo doon jiray shaah dadku waaga ma aqoon waxaas shaah yar macaan baan ka cabbi jiray maxaa ugu yimid halka walka ingiriiska ugu yimid halka meesha kulka cideeska weeye waa iska banaan cidla weeye xoolahan ku eegaynay ingiriiska halka ugu yimid buska burka halka ku haysta wararka maxaad ka qabanaysaa waa la warsaday shaah baan ku shadaa carruurtan ugu shaqeeyaa buu haddaan magaalo kaaga samayno ka warran baa lagu yidhi dee waan ku rayn buuri haddaan magaalo ii samaysay waa la soo kaxay halkan yaro xoog cagiisa oo meesha halkan imika la birtaleer ugu shukada yar iyo waxyaro waa biyo loogu sameeyey intaan tagan bas ugu yimid ingiriiska ugu yimid ninkaasoo George ahayo ninkaa kama ka loo jeedo ugu yimid halkaa wiil halkan haddaan ku sharaka kula noqdo oo wax ku gacan ku qabto ma noo shaqayni hawaan noo shaqayni gargad buu ka dhisay halkan yar ee magaalada Kooniyada halka birsa dheer ku taagan tahay shaqadii buu gargad buu ka dhisay halka gargadaas ku shaqayn jiray halkii meeshii aan yar magaalada u soo eegatay odayga lagu soo ururay waxa soo degay wala caraba soo degtay reeb basra aan looran jiray ingiriiska la shaqaysan jiray qolo caraba halkan dhisay aqal ka dhisay dadkii halkaas lagu soo meeshii aan yar magaalada u soo eegatay dadku ku soo ururay ku sagaal boqol 8 يا عرب سنة ماشي عين مقالة وقعتي ورجع على سدوك يمد إنجليز كانوا والله تقالوا ولا عاد ويرجعني ممكن أنت عندك هذا مثلا في أسرع صون نقطة لا في أسرع واحد نقطة عندك مقالة نقطة أباي بالك النقطة واحد فرصة فريسة وكرسي لا في أسرع وقف فريسة على مدار باجري كرتوا عنك وقري يا حكومة dee waqti bay qaadatay maanta dee halkii ay doonaysay magaaladani maanta way gaadhay iyadoo waliba wax ka dhiman yihiin oo in wax lagu diriyo aan rabno maanta farxadeeday leedahay kawsar way heshay 80 sanana weeyaan cumrigeedu magaalada 80 sano weeyaan magaalada cumrigeedu haddayna 80 baahay magaalo yar maaha farxadahaasay soo martay maantana waa mahad ilaahay kawsar way heshay waanu ku faraxsanahay وإن يصير صوتنا وندوننا
ma garanaysaa oo u sii biirto waxaan kula dardaarmaynaa dadka dhalinyarada ee imika soo socda rag iyo dumarba in midnimo ay ka shaqeeyaan horumar ay ka shaqeeyaan ay gacmaha isqabsadaan si ay u hesho degmo gobol oo ay u gaadho maanta waxay farxada meeshii aad maamuleysay oo saddex kala dhashay 2 konsol oo mid wajaal yahay midna la faciisay markaan soo noqono xagga la faciisahan la faciiso waxay meesha ugu population badan lamaan degmada dadka ku nool markii tirakoobta la sameeyay 280 kun ahayd ay tirakoobta sameeyeen la yiraahdo B2 Play oo tigreegaha ka degmahan halkan baa ugu badan degmadani meeshan la faciisalayado waxay ku caan ahayd oo dhisnayd qabalayaal fara badan oo fadhiisadana waa la yiri qabalayaal shiki waxa la yiraahdo sameeyay waxa laga soo qaaday gabiga weyn 6 santar soo dhantahay la faciisalkii 34 taakaay odayaashu say sheegeen halgan badan ayaa loo galay ciddii markaa waqtigaa taagnayd ka maamulahaan markaan jirnay markaan xuquuqda u soo hadal qaadno la faciiso kale xubno ka tirsan dowladda ma ogolin la faciisin wax noqoto bulshada magaaladan oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay falashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha ayaa waxay magaaladani la faciisa si weyn looga yaqaanaa dhanka wax soo saarka sida qamadiga iyo firileyda kala duwan taas oo wax soo saarka ka soo baxa halkan uu gaadho goobo kala duwan kasakow beeraha sidoo kale magaalada la faciisa waa xarun ku habboon ganacsiga kala duwan waxaana magaaladan ku yaala warshadaha kala duwan sida warshada daqiiqda magaalada la faciisay waxay leedahay ceelal fara badan oo 7 ah iyo 4 dad ku biirsadeen 12 kaas leeyahay oo mid walba wax beer wax la soo saar u leeyahay hadoo maanta la faciisay dakhliga ka soo bixi jiray waxa dakhliga ugu badan degmada u baray ilaa $2 milyan 3 milyan ayaa waqtigan dambe soo bixi jiray haddana ma ahaan jirin dakhliga soo baxato wax loo qabto waayo markaan qiyaasna imika ahaan iskuulka ku dhisan secondary-ga waxaa dhisay dadka shacabka iyo qaar kale badan la faciise waxay ku jirtaa meesha ugu hanti badan dad badan wax soo saarna leh waxa ka dhisan halkan warshadii daqiiqda ee qamadiga ridqaysa ayaa ka dhisan la faciise oo qamadiga marka la ridqo jigjiga la geeyaa daqiiqdeeda Soomaaliland la geeyaa marka waxaan ku soo koobayaa oo farxada maanta farxada aan la faraxsanahay meeshii aad maamuleysay oo dhashay ayna ka mid tahay la faciise wadnaantii magaalada la faciise oo horay u ahayd tuulo ayaa waqtigan heshay darajadii iyo qiyamkii ay mudnayd oo noqotay maamul magaalo shacabka magaalada la faciisana ay si weyn u soo dhaweeyeen tallaabadaas oo horseedaysa in magaaladu ay noqoto mid ku habboon nolosha bulshada oo loo dhammaystiro adeegyada kala duwan ee magaalanimo waxaan hambaliyeynayaa ismaamulka cusub ee helnay waxaan leenahay hambalyo la faciisana waa magaalo horumarineed waa magaalo wax soo saarintaan ognahay alxamdulilah rabbil caalamiin ayaan kayaga noogu simay inaan magaaladeeda ku dabaadegno inaan soo dhaweyno inaan mar walba waxaan ku bogaadino alxamdulilah rabbil caalamiin nin beer qoday beertina u baxday midhii ka dhargay isku raaxaysanaya muddo wanaagsan seexday gamay baan nahay maanta alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baan mahadnaqaynaa maada ilaahay baa iskale waa mahad ilaahay iska leeyahay oo uu na siiyey وهذا نجا أقبلي على بريق نجا أقبلي إله نجا أقبلي وين إلهنا هو وحنا وما هذا قدر إلنا إله ما هذا كنا وكفوبات ونسيه وحنا دونيني وما نذكر راح سننا دولة دا نقول وقتنا نقول السنة ونقول ما هذا كنا وحنا هي دولة تناسيج توريقت بسيج تناسيج جوكت الحمد لله رب العالمين وان لنا هاي يا أنت كلك شقي سوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته